السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي waxaan wadnaa koorsadii managerial accounting cashirkii sideedaad ayaan maanta qaadanaynaa. Waxaan sii wadnaa cashiradii behavior costiga aan uga hadlaynay kharashaadka wax soo saaritaanka iyo habdhaqankooda. Waxaan hore usoo qaadanay qaaran ku tilmaamnay inay yihiin variable ay isbedelayaan mar walba oo wax soo saaritaankaagu isbedelo, iyo qaar aan ku tilmaamnay fix aynan isbedelaynin ama wax soo saar ama waxba soo saarin. Maanta waxaan qaadanaynaa qaybtii saddexaad ee mixka aan ku tilmaamaynay. Idan waxaan qaadanaynaa haddii ka waran aan ka soo qaadno mithaalkii ahaa rentiga, kiradii. Haddii ka waran 3 biloodba ninka guriga iskale intuu ku imaado uu kharashka kugu ziyaadinayo, waxa weeyaan marka waxay ka baxaysaa qeexitaankii aan ku qeexnay ee aan dhahaynay ma isbadbedelayso. oo يعني waxaad bixinaysaa $1 ama soo saar wax ama waxba soo saarin. maya haddii dib u eegis lagu sameynayo oo qiimaha uu ziyaadayo, waxa weeyaan markaasi wuxuu soo galayaa qaybta semi fixka ayuu soo galayaa rentigan ka hadlaynaa. The cost will take the shape of step cost whenever the cost is fixed over a fixed period of time but there is a revised cost. يعني مدة معينة 3 bilood waa fix $1 bixinayna, kadib doo eegis ayaa lagu sameynaya oo waa lagu ziyaadinaya in the cost to a higher level than the previous one in subsequent period. يعني qiimo ka sareeya qiimihii 3 bilood ee hore ayaa lagu daraya. $1 halkii aad ka bixinaysay waxa lagu leeyahay wixii ka bilowda bisha March iyo bilaha soo socdo waxaad bixinaysaa $1,200. idan dib u eegis ayaa lagu sameeyay, waxaa lagu daray $200. idan wuxuu ka baxayaa khaanadii aan dhihi jirnay fixka, wuxuu galayaa khaanada labaad ee ah semi fixka ayuu galayaa. bal aan tusaalahan isla qaadano. quarter sanadkiiba waxaan u qaybinay 4 quarter. quarterka ugu horeeya meeqaan bixinaynay 1000, quarterka labaad 1200, 1400, 1600. idan qaybtani markaan rentigan aan waxaynayno waxa aan ku categorize garaynaynaa inuu yahay step cost ama semi fixed cost inuu yahay ayaan ku categorize garaynaynaa. ayadoo graphic aan isla qaadano, waxa weeyaan 3 bilood ugu horeysay $1 ayaan bixinaynay. waxa weeyaan 3 bilood ku xigtay waxa nagu ziyaaday 200. idan ziyaadada nagu ziyaaday waa ziyaado khafiif ah marka loo eego lacagtii hore aan bixinaynay. calaaqana lama laha wax soo saaritaankaaga. waxay calaaqa la leedahay qofkii guriga iska lahaa ayaa waxa weeyaan wuxuu arkaa in qiimaha uu kaaga kireeyay ay ka yar tahay qiimaha suuqa. soo waa ku imaanaya li'anno taasna maxaa keenayo, waxaa laga yaabaa in ay dad kale ay meesha ku jiraan oo la rabo meesha in lagaa saarto. idan qiimaha sidaas ayaa lagu ziyaadinaya. supply-ga iyo dhimaanka ayaa badan, taasaa keenaysa marka li'anno qofka guriga iska leh hadduu ka cabsanayo gurigaasi haddaad ka baxdo in aan laga kiraysanin muunan ku imaadeen $200 muunan kugu dareen. idan marka meeshan lagu barayo waxaa lagu barayaa waxyaalaha suurtagalka ah inay kugu dhacaan. hadda maxaan rabaa inaad iga qabato, haddii kharashka muddo yar kadib uu isbedelayo category-ga qaybtii fixka ka soo bixi waxaad gelisaa qaybta semi fixka geli. waa haddii calaaqa uu markii hore asalkiisa uu ahaa fix hadduu ahaa, asalkiisa variable hadduu ahaa isagana semi variable ayaan gelinaynaa. haddaan isla qaadanaynaa insha allahu tacaala. idan waxaan leenahay qaybta mix costiga 2 qaybood weeye. waxaan ku tilmaamaynaa semi variable iyo semi fixed. semi variable-kaan ku bilowno. semi variable-ku waxa weeyaan in uu qiimaha uu isbadbedelayo, laakiin isbadbedelkaasi uunan calaaqad toosa la lahayn, direct proportional uunan la lahayn with change in the level of activity over a defined period of time. bimacnaa waxa uu isbadbedelayaa wax soo saarkaaga uu isbadbedelayaa, laakiin isbadbedelka calaaqad toosa lama laha wax soo saaritaankaaga. mithaal ayaan qaadan doonaa insha allahu tacaala. tusaale ahaan oo kale waxaa kuu shaqeeyo dad ayaa si temporary ah kugu shaqeeyo. waxaad kula heshiisay dadkaasi waxaad kula heshiisay in aad mishaar siinayso. okay, mishaarkaasi aan siinayno
maadaama mishaarkaasi thaabit yahay wuxuu galayaa qaybta semi fixka ayuu galayaa. laakiin haddii aad dhahda ka waran ayna ka shaqaynayeen dadkii laborka ahaa, haddii aad dhahda ka waran 8 saac waxa weeyaan qiimahaasaan ku heshiidnay, wixii 8 saac ka badanna overtime ahaanaad u qaadanaysaa. idan waxay noqonaysaa 2 qaybood kharashaadka kaa baxayo ee dadka shaqaalaha siinayso 2 qaybood ayay u kala baxayaan. qayb fix ah oo 8 saac ku heshiinay iyo qayb variable ah oo ah haddii aad in ka badan aad shaqayso waxa weeyaan waxaad qaadanaysaa lacagta by hour ayaad ku qaadanaysaa. waan isla qaadan doonaa insha Allah taala. it includes marka maxay ka kooban tahay qaybta semi variable-ka? it includes qayb fix ah oo waxa weeyaan qaybtii hadda aan sheegaynay ee ahayd in laborka shaqaalaha inta aan kula heshiinay ay tahay 8 saac shaqaynaysaa. tusaale ahaan oo kale 8 saacna waxaan ku siinayaa $200. laakiin haddii aad 10 saac ama 12 saac shaqayso 4 saac waxa weeyaan by hour ayaan lacag kugu siinayaa. it includes both a fixed qayb fix ah ayaa ka mid ah waa 8 saac ugu horeysay, that is fixed whatever the level of activity, ama wax soo saar ama waxa soo saarin laborka uu ku jooga uu shaqaynaya. waxaa kaloo jirto qayb variable ah, component variable ah, that is directly related to the level of activity. calaaqala leh markii la ziyaadiyo uu qofkan saacado badan sii shaqeeyo isagana waxa weeyaan marka 2 qaybood ayay ka koobnaanaysaa semi variable-ka. okay, aan isla fiirino marka tusaalahan isla qaadano. activity-ga 100 aan soo saaraynay, 200 aan soo saarnay. okay, maxaa ku dhacay meesha? marka total cost-iga uu ziyaaday 2100 halkuu ka ahaa wuxuu ku ziyaaday 2200. ziyaadada uu ziyaadayo direct proportional ma aha oo ma dhahayna maadaama aan double garaynay intana waa inay double garoodaa. la waxa weeyaan waa in ziyaado juhdi baxay oo kordhinayso aasaaskii ugu horeeyay fixka ahaa. waa dhamaystir weeye. dhamaystirka marka muxuu keenayaa in shaqadana ay double garowdo, qarashkiina uu ziyaado, laakiin ziyaado macquula uu ziyaado. total cost-iga wuu ziyaadaya mar walba uu ziyaado activity-ga, laakiin but not in the same proportion. yani isku si uma wada ziyaadayaan, laano ziyaadada meeshan double ku dhacay. proportionka waxa laga wada waxa weeyaan double ku dhacay. marka waxay ahayd inuu ayadana double garowdo. la maxay u double garoobi laadahay? laano aasaaskaad ka duulayso qayb fix ayaa ku jirto. okay, xoogaa aan qaadano graphican sifa aan u fahanno. maxaan leenahay marka? qayb fix ayaa jirto oo aan ku tilmaamayno fix inay tahay semi variable-kan ka hadlaynay. qayb fix ayaa jirto iyo qayb ay isbadbedelayso variable ah. inta marka waa 8 saac ee laborka ay noo shaqaynayeen, intana waa 4 saac weeye. idan shaqaalaha lacagtaan siinayno waxa weeyaan طبعا هذا شغاله usoo qaadanayna مثالك waan bedeli karnaa. waxaan ka soo qaadi karnaa tusaale ahaan oo kale, bal ka soo qaad على مستوى adiga waxaad isticmaasho. tusaale ahaan oo kale waxaad ishtiraak subscription aad ka haysataa internet hormuud. waxay ku siisay bishii waxay ku siisaa 20 GB ayay ku siisaa. waxaa kaloo saacadaha hadalkana waxay ku siisaa tusaale ahaan oo kale 10 saacadood hadal ah ayay ku siisaa. okay, 20 GB bil walbaba ama isticmaal ama ha isticmaalin waxa weeyaan waxaan bixinaynaa qaybtani waxaan ku bixinaynaa tusaale ahaan oo kale $30 tusaale ahaan oo kale. idan ama isticmaal ama ha isticmaalin waxa weeyaan $30 inta ay noo soo galaysaa. okay, haddii ka waran meeshii 20 GB ahaa GB-gi halkii GB-ood ku darto isticmaalkaaga farabatay, waxa weeyaan waxay ku leedahay halkii GB oo ziyaado ah, halkii GB ba $1 ayaan ka qaadaya tusaale ahaan oo kale. idan from marka threshold-ka laga gudbo 20 GB wixii ka badan ee la isticmaalo qaybta variable-ka soo aadaysa. tusaalahan bedelayna shirkadda korontada idin geliso waxay idin kula heshiisaa kilowatt muayyan ah in bishii ay pace ay ka duusha ay tahay. tusaale ahaan oo kale 10 kilowatt waxaad bixinaysaa $10 ama $20. idan taasi waa thaabit weeye, waa fix. ama isticmaal ama ha isticmaalin
waa lagaa qaadayaa. laakiin markii aad 12 kilowatt isticmaasho 10 ka badan ay isticmaasho halkii kilowatt qiima lagugu xisaabinayaa. idan thresholdka marka aan ka gudubno wixii ka dambeeyo wuxuu noqonayaa qaybta variable-ka ayuu noqonayaa. idan waa kharash ka kooban laba qaybood. semi variable-ka markaan ka hadlayno qayb ah fixed iyo qayb variable ah, labada qaybood wey. waxaa laga yaabaa inaad su'aal isweydiiso, su'aashaas oo ah okay sidee baan u xisaabiyaa macallin? mucaadalan ku siinaynaa sifa aad u xisaabiso mucaadaladan isticmaal. marka mucaadaladan ilahay insha allahu tacaala graafkii aan kusoo laabanno, xooga inta ii saar hadda intan graafkii aan kusoo laabanno, magacyada basaan rabnaa inaan bedelno, waa the same graph aan soo qaadanayni. qaybtani waa y-gii wey. y-ga waxaan ka soo qaadanaynaa inay tahay total utility cost ama total cost dheh, total costigi wey. idan y-ga markaan aragno maxay u taagan tahay? y-ga waxay u taagan tahay total costi bay u taagan tahay. okay, total costi ayay u taagan tahay. okay, total costiyo maxaa lagu helaa? total cost waxaa lagu helaa fix oo lagu daray fixed oo lagu daray mucaadaladan muhiim waaye ii qabo. fix oo lagu daray variable ayaa waxaa ku siinaya total cost. mucaadalada marka ii hay later on usoo laaban doonaa. okay, marka totalkan ka hadlayno waxaa weeyaan total costigi weeye. okay, now aan u imaano qaybtan waan dhamaynay. qaybtan x-ka aan u imaano. qaybtan x-ka maxay noogu taagan tahay? waa activity-gii weeye. intii kilowatt eed isticmaalaysay, intii gb ee isticmaalaysay, intii saacadood ee overtime ee isticmaalaysay. idan x-kana maxay u taagan tahay? x-kana waxay u taagan tahay level of activity ayay u taagan tahay. idan y-gana waan fahanay macallin, x-tana waan fahanay. okay, qaybtan a maxay u taagan tahay? eedu waxay u taagan tahay fixka monthlyga lagaa qaadayo. fixka monthlyga lagaa qaadayo. idan a haddaad aragto waa kharashaadka fixka ah. okay, b-dan maxay tahay macallin marka? b-dan waxa weeyaan variable-ka per unit, variable costiga per unit. idan mucaadaladan aan dhisayno ee qaybta mixka loo isticmaalo, goormaa la isticmaalaa? waxaa la isticmaalaa markii aad ku wareerto kharashka uuna ka kooban yahay qayb fix ah iyo qayb variable ah. mucaadaladan la soo bax. okay, oo haddii ay fix tahayna mucaadaladan isticmaalaa. fix hadday tahay mucaadaladan uma baahnid, qarashkii aad bixisay unbaad keenaysaa. okay, rentigii aad bixisay, mishaaraadkii aad bixisay. variable waxaan soo qaadanay intii material isticmaashay, intii labor isticmaashay, intii overhead isticmaashay. mucaadaladan goormaad u baahanaysaa? waa haddii activity-ga qaybta aad rabto inaad xisaabiso ay ka mid tahay qayb fix ah iyo qayb variable ah. mithaalkii waan isla qaadanay, mithaalo kalena waan isla qaadan doonaa insha allahu tacaala. biyaran cabayahay sugan bal waan yara daalay, qaylada waan ku daalay. okay, hagaag marka hadda maxaan samaynaynaa marka? intaa inaan isla fahnaa u malaynaa. aan mithaalkan isla qaadano example weeye. mithaalkan muxuuna leeyahay if your fixed monthly utility charge, lacagta sida monthlyga lagu xisaabinaya ee tahay 40. muxuuna siiyey marka? qaybtii eeduna siiyey macallin, qaybtii eeduna siiyey. mucaadalada ha iloobin weliga allaha. y waxay la mid tahay a oo lagu daray b oo lagu dhuftay x. mid walbana waxay u taagan tahay slide-ka horaan kusoo qaadanay. okay, your variable cost waxaa weeyaan waxaana la yidhi waa 3 senti weeye. variable costiga qaybitee weeye waa b-dii. idan a-diina waa la siiyey, b-diina waa la siiyey. okay, by kilowatt hours. and your monthly activity level is meeqaa la yidhi? waxaa weeyaan 20. idan 2,000 oo kilowatt isticmaashay. what is the amount of utility bill? meeqa ayaad isticmaashay ayaa lagu leeyahay. macallin way fududahay. 40 lagu daray qoos ayaan furayaa 0.03 oo lagu dhiftay 2,000 ayaa wuxuu siinayaa dhammaan kharashaadkan isticmaalay. 40 lagu daray 0.03 oo ah qaybtii b-da variable cost per unit-ka. x-kana waa activity aad samaynaysay. marka isku dhufato maxaa ku soo baxayo? mix
kharashka mixed costiga ee kaa baxay ayaa kuu soo baxayo. Okay, misaaladan aan qaadana marka sifa aan semi variable-ka aan u fahanno. Semi variable-ka marka maxaan leenahay? Tusaale ahaan oo kale shaqaala kuu shaqeeyo 10 shaqaala ii shaqeeyo. Okay, 3 ka mid ah waa shaqaalo permanent ah si toos ah kugu shaqeynayo. Okay, bimacnaa contractigooda waa shaqaalo rasmi ah. 7 ka midna waa shaqaalo si maalinle ah kugu shaqeeyo. idan kharashaadka office-ka kaaga baxayo 2 element ayay ka koobnaanayaan. 2 element ayay ka koobnaanayaan. qaybtii kuwani waxa weeyaan shaqaalo toos ay ku yihiin. kuwana maalintan u baahdo un baan u yeeraayo ii shaqeeyaan. idan kuwana waa variable, kuwana waa fix. marka waxay soo galayaan qaybtii mixed costiga semi variable-ka ayay soo galayaan. Office salary, where there is a core of long-term secretarial staff plus employment of temporary staff when activity level rise. mar walbo shaqada igu ziyaadato 7 qof mid kamidaan u yeeraya. Okay, idan wuxuu ka koobmaa kharashaadka office-ka ku baxayo waxa weeyaan dad si toos ah igu shaqeeyo iyo dad markay shaqada ay kor u kacdo aan u yeeranayo. sidoo kale maintenance charge-ka dadka maaragtay sameeyo dayactirka iyo waxaasi heshiisa lala galaa. heshiiska marka lala galayo bishii waxaa lagula heshiinayaa in ay yani number mucayan ah bil walbaba intaasaan idin siinaynaa maintenance noo sameeyo. laakiin ka waran haddii aad u baahato saacado ka badan saacadihii normalka ahaa oo saacado ziyaada aad u baahato, idan maintenance charge-ka wuxuu ka koobnaanayaa qayb fix ah iyo qayb variable ah. إن شاء الله إن إلى فهمتان رجينيا. أوكي، مع المعادلة نصيصي معادلة نصيصي وحي إهات y وحي لم ينتهي a أو لغو داري b أو لغو دفت x. هذه مرة بابا دي لسينا يوفضل دهي مجرتا مررك قاركود أو لغو أتكينا يو أو نمبر ذا لسينين أو أي تهي أنيغا إنا نمبر ذا سو سارو هاوي جرتا. هذه جرتا محان سميها هذه نمبر ذا haddii data inta lagu dhuubo lagu dhaho datadani waxaa soo saartaa wixii fixka ah iyo wixii variable-ka ah mucaadala ahaan kusoo saar total mixka ayaa laga rabaa haddii lagu dhaho. macallin maxaan sameeyaa? waxaan isticmaalaynaa waddo la yidhaahdo high low method. waddadan ayaan isticmaalaynaa. analyze ayaan ku samaynaynaa. maxaan analyze ku samaynaynaa? waa in data lagu keeno. datadaasaa marka adiga waxaad ku samaynaysaa waad analyze garaynaysaa. Okay, maxaa na hor yaalla? example-ka na hor yaalla aan soo qaadano. maintenance weeye waxaa la soo saaray 6 bilood ee sanadkani inta saacadood ee maintenance-ka ay dadka noo shaqeeyeen iyo kharashaadka kaa baxay ayaa la soo saaray. maxaa laga rabaa marka? waxaa la rabaa in aad identify ku samayso shaqadaad waxa weeyaan identify the variable part and the fixed part. qaybta fixkana inaad soo saartaa laga rabaa, qaybta variable-kana inaad soo saartaa laga rabaa, ee qaybta total maintenance-ka. January 625 saac ayaana loo shaqeeyey. Okay, 8,000 waa ku baxday oo dollar. February sidoo kale 450 7,000 ku baxday. haddii la ii dhiibo datadan oo la i weydiiyo waxaad soo saartaa qaybta variable-ka iyo qaybta fixka. macallin maxaan sameeyaa? mucaadaladii baan isticmaalaynaa, laakiin mucaadaladii intaadan isticmaalin waa in aad marka hore analyze samaysaa. number 1 iga qabo. maxaan samaynaynaa? qaybta maintenance-ka. qaybtani maxay tahay? hour maintenance-ka waa waxa dhaqaajinayo kharashaadkaaga. maxaan ula jeedaa waxa dhaqaajinayo? haddii aynan saacadahan jirin kharash miyaad bixin lahayd? maya. idan mar walbaba waxaad ogaataa waxa dhaqaajinayo kharashaadkaaga. Okay, maintenance-ka inta saacina loo shaqeeyey, korontada inta kilowatt, dadka ku shaqeynaya inta saacay ku shaqeynayaan. Okay, maxaan samaynayaa marka? isha mari. isha markaad mariso waxaad soo saartaa midka ugu sarreeyo. 600, 400, 700 tantana ka weyn
bal aan fiiriyo inay mid kaloo ka weyn ku jirto 500 maya 700 hadda iigu weyn 735 okay intan hore dhan iga daa 735 ugu weyn numberka ugu dambeeya 850 idan numberka ugu weyn waa maxay 850 maadaama numberka ugu weyn 850 waxa weeyaan total costiga ugu weyn wuxuu noqonayaa numberka ka soo horjeedo laano waxa dhaqaajinaya kharashaadkaaga maxaan niri waa saacadaha kullama saacadaha ziyaado kullama kharashaadkaaga ay ziyaadaan idan number 1 waxaan soo saarnay number 1 waxaan soo saarnay numberkii ugu weynaa ayaan soo saarnay okay hada dib ugu laabo hadda waxaan soo saaraynaa saacadaha ugu yar inaad ilaahisan filaya wax adag ma aha mar labaadan ku celinaynaa number 1 waxaan soo saaray total maintenance-ka ama maintenance haddii laga bedelo wixii la raba hala keeno waxa dhaqaajinaya kharashaadka ayaan soo saaray 850 saacadood waxaan bixinay 9800 hadda maxaan soo saarayaa qaybta ugu yar dib aan u laabto 700 way weyn tahay 500 iyo 700 500 ka yar 700 iyo 500 yar 400 iyo 500 400 yar 600 iyo 400 yar idan waxaan calaamadaysanayaa qaybta ugu yar qaybta ugu weyn iyo qaybta ugu yaraan calaamaday على طول midka ka soo horjeeda ayaa noqonaya midka ugu yar hadii aad rabto inaad jeeg gareyso isbarbar dhig wax 7 ma meesha ku jiro maya okay waan fahmay macallin maxaan sameynay markii ugu horeysay qaybta ugu sareysan soo saarnay labada dhinacba qaybta ugu hooseysan soo saarnay hadda marka maxaan sameynay maintenance hour kana kala jar qaybta total costingana kala jar aan u gudubna marka cashirkan qaybtan graphic buu soo saarayaa oo ah qaybihii ay halkii ay ku dhaceysay total maintenance-ka oo y u taagan iyo activity-ga oo x u taagan yani 450 inta way taqriiban tusaale ahaan oo kale kharash ahaanna meeshan ay ku dhacaysaa 450 hada dib ugu laabato 450 meeqay ahayd 700 iyo 400 weeye taqriiban ahaan wax ka yara hooseeya intay ku dhacaysaa okay muhiim ma aha slide-kan kaliya wuxuu rabaa graph ahaan inuu kugu tuso qiimihii wixii hadda aan sameynaynay okay waxayna tan uu ku siinayaa ala طول wuxuu ku siinayaa inta ugu sareyso ayuu labada fikrad ka siinayaa no okay aanu imaano maxaan sameynay intii hadda aan sameynaynay waxaan soo qaaday qaybta ugu sareyso iyo qaybta ugu hooseyso laano aslanba wadadan waxa la dhahaa high low method ayaa la dhahaa high low method midka ugu sareeya iken midka ugu hooseeya iken the same activity-gi wixii dhaqaajinayay totalka costiga kharashaadkana sidoo kale ku sameeya waxaa la keenay lower key waxaan kaloo keenay higher key kadib maxaa sameynaysaa kala jar janjigooda ii soo saar isbadbedelkooda markaan soo saarno ayaan waxaan sameynaynaa total costiga ayaan u qaybinaynaa inta unit waxa ku soo baxo wuxuu noqonayaa qaybtii variable bar cost oo maxay u taagneed TB-da waxaad soo saartay B-dii ayaa soo saartay okay idan sifa B-da aad u soo saarto analyze lagaaga baahan yahay analyze-ka sifa aad u samayso waxaan sameynaynaa wixii hadda aan sharaxaynay I hope in ay caddahay arrintaasi waxaan u qaybiyey kharashka ayaan u qaybiyey unitiska aan u qaybiyey intaad isdaba gadiso number khaldan kuu soo baxo jawaabtaa iska khaldin waxa wax loo qaybinaya fiiri okay mar haddii aan sidaa samaynay waxaan samaynaynaa hadda maxaan rabnaa inaan soo saarno qaybtii variable-ka waan soo saarnay oo par unit-ka ah laakiin su-aashii kamaynan jawaabin par unit soo saartay waxaa la rabaa total variable-ka inaad soo saarto iyo fixka inaad soo saarto hadaayay ma jirtay mucaadala aan ku dhahayay mucaadaladaas ayaan dib ugu laabanaynaa total costiga daa'iman maxaa lagu soo saaraa total costiga waxaa lagu soo saaraa waxay la mid tahay mucaadaladan ilahay waa fixed cost oo lagu daray variable cost okay hadda marka mucaadaladan ayaan waxaan ku sameynayaa
ayaan dib u hagaajinayaa tan ayaan banaanka keenayaa okay marka maxaa la sameeyay total fixed costiga tan weeye moogta waxay la mid tahay tanna gudaha la gelinaya okay waxay la mid tahay total costiga oo laga jaray total variable macadaladan minus ayay noqonaysaa okay marka maxaan sameynay marka hadda mucaadaladan ayaan rearrange aan ku sameynay ama si kale aan dhahno sifo aad ila fahantaan aan dhaho okay waxaan leenahay maxaa meesha noo taagnaa total fixed Soomaa aan rarna kaliya tan okay aan rarno idan total costiga oo laga jaray variable costiga muxuu noqonayaa marka total costiga oo laga jaray variable costiga muxuu la mid yahay fixed costiga ayuu la mid yahay waa meesha aan dagaalka ka bilaabi rabno okay waa tan weeye total fixed costiga muxuu la mid yahay total costiga oo laga jaray total variable indhaha fur waxaan rabaa inaan ku siiyo arrin maxaa la dhihi jiray ku anfici doonto markaad xalinayso okay mucaadalooyinkan waxaan shaqayn karaa okay total fixed waa waxaan raadinayna total costiga xagee ka keenaa total variable laba qaybood ayay ka kooban tahay qaybtii b-da iyo qaybtii x-ka ayay ka kooban tahay okay total cost ma hayo calaamad su'aal isaar tanna ma hayo calaamad su'aal isaar b-dii waan hayaa oo waxaan ku soo saaray talaabadii hadaan soo dhaafnay hadaad ila socotay okay tan waa hayaa marka tanna ma hayo marka sifad labadan aad u soo saarto lianno saddex majhuul haday meesha yaalaan ya ma waxaan u tageynaa saaxir maya waa in aan xal keennaa okay saddex majhuul suuragal ma ahee laba majhuul haddii aan hal majhuul haddaan haysta ayay wax suuragal yihiin macalin maxaan sameeyaa okay total costiga waxaan dooranaynaa labadii lowgii iyo hayga ii qaado hayga markaad qaadato hilmaam lowgii inaad ila socotaan rajaynayaa marka qaybtii total costiga ee hayga ayaan soo qaadaynaa waxaan leenahay total costigeena waxa weeyaan 9,800 wey idan xal ayaan u helnay tii ugu horeysay tii labaadna variable x-ka waxaan qaadaynaa qaybtii muxariga u ahayd awaradii idan 850 ayay noo noqonaysaa qaybtana idan analyze-ka aan sameynaynay markii ugu horeysay waxaan soo saarnay b-dii markii labaadna waxaan soo saarnay total costiga iyo qaybtii variable costiga ee activity-ga oon qaadanay qaybtii hayga ha qaadanin qayb yani activity-gana ha ka qaadanin lowga total costigana ha ka qaadanin minus-ka waa in aad qaybta hayga ka wada qaadataa ama aad dadashaa lowgaad wada qaadan kartaa adiga hadda tijaabi oo meeshan 9,800 aan niri waxaan dheynaa 7,400 meeshan 850 aan niri waxaan dheynaa 450 labada mid qaado sifa aadan ugu wareerin daa'iman hayga qaado midda ugu sarreysa qaado okay macallin waan ku fahnay waxaan u imaanaynaa mar haddaad ifahantay qaybtaasi ayaan halkan ku sharaxaynaayo waxaan leenahay aan idinka tirtiro sifa aynan idin dhibine waxaan leenahay marka hadda maadaama aan niri mar walba waxaan soo qaadaynaa mar walbaba total costiga wuxuu u taagan yahay costiga ugu sarreeyo 9,800 weeye oo laga jaray qaybtan waxaan ku soo saarnay haddaad ila socotay khudwadii hore stepkii horaan ku soo saarnay 850na waxaan soo qaadanaynaa activity-ga ka soo horjeedo total costiga aad qaadatay idan xaaladii way fududaatayba total fixed costiga waxaa marka 9,800 oo laga jaray waa total costiga oo laga jaray qaybta variable total fixed marka muxuu noqonayaa 4,700 hadaba waan soo saarnay qaybtii variable-kana laga rabay iyo qaybtii fixed-kana laga rabay annagoo isticmaalayno wadada high low method annagoo isticmaalayno ayaan ku soo saarnay waxaan rajaynaa marka inaan inta isla fahnay equation-ka waxaa weeyaan y waxay la mid tahay equation-kii asalkan u laabanay hadda 4,700 oo qaybtii fixed-keen soo saarnay oo lagu daray 6 point oo lagu dhuftay waxa markaa ee aad rabto inaad soo saarto tan thaabiday ku tahay tanna thaabiday ku tahay wixii aad soo saarto unbaad ku dhufanaysaa oo halkan ayaad ka duulaysaa
اوكي cashirka wuxuu ahaa waxaan u malaynaa cashirkan xoogaa wuxuu u baahan yahay inaad mar labaad ku celiso practice-na samayso practice-ka marka kan waan kula samaynayaa kan dambe laakiin adaan ku daynayaa iskuna daya inaad ka shaqaysaan jawaabtana soo dhigtaan commentiga okay maxaana la weydiiyey salaries ayaana la weydiiyey su'aashana la weydiinayo daa'iman su'aasha waxaad ka bilowdaa sifa aadan ugu mashquulin waxaan way ku dhibi ogow marka hore maxaa laga rabaa akhri su'aasha daa'iman pointiga ama faasilada commentka ugu dambeeya ka bilow what is the variable portion of sales salary and commission maxaa lagu weydiiyey qaybtii variable portionka ayaa la i weydiiyey okay meeshana maxaa weeyaan jawaabaha qaybtii unitka يعني markii mucaadaladii aan ku laabto y waxay la mid tahay a oo lagu daray b oo lagu dhuftay x kii markii aan ku laabano waxa su'aasha hadda li weydiinaya waa qaybta b da li weydiinaya qaybta b da ku soo saari jirnay maxalina qaybta b da waxaan ugu tiri daa'iman waxa samaysaa waxaad kala jartaa activity-ga qaybta high-ga iyo low-ga totalka activity-ga high iyo low-ga waxa ku soo baxo kharashka u qaybi total unit-ga sidaas kugu soo baxaysaa bal aan fiirina maxayna siiyeen sales salary and commission ay bixiyaan waa 10,000 oo dollar hadii la soo saaro ama la iibiyo aan dhahno hadii la iibiyo 80,000 maadaama salary ay calaaqa la leedahay sold mar walba oo 80,000 oo unit 80,000 oo iPhone ay iibiyaan meeqay qaadanayaan 10,000 ka war hadii 14,000 goormay qaadanayaan 14,000 haddii iibkooda uu noqdo 120,000 meeqay qaadanayaan 14,000 idan maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay in high-ga uu yahay labadan inay high-gi yihiin qaybtana low-gi inay tanna waa low-gi tanna waa high-gi marka maxaan samaynaynaa waxaan kala jaraynaa activity-ga oo waxaan leenahay 120 oo laga jaray 80 marka maxaa ku soo baxaya 40,000 14,000 oo laga jaray 10,000 4,000 ayaa ku soo baxayso marka maxay noqonaysaa high-ga jadwal samayso high level-ka waa meeqa jadwal intaad samayso sifa aadan u wareerin jadwal samee high level low level change ku qoro kadibna inta waxaad ku qortaa unit iyo cost high level-ka waa maxay waa 120 low level-ka waa maxay waa 80 markaan kala jaro 40 qaybta costigana 40 iyo 14,000 waa high-ga lower-kana meeqa waa 10,000 markaad kala jarto 4,000 hadda marka maxaan samaynayaa marka daa'iman kharashka u qaybi unitka u qaybi haysdawo marinin idan 4,000 oo loo qaybiyey 40 unit waa meeqa waa 10 senti per unit halkii iibba waxa weeyaan 10 senti ayay noqonaysaa okay marka jawaabta saxda b ayay noqonaysaa waxaan rajaynayaa in aad inta isla fahanay su'aashan ayaan idin dhaafayaa waxaana la weydiinay waa maxay waxaana la weydiiyey fixkii ayaana la weydiiyey bimacnaa haddii mucaadalada ku laabana y waxay la mid tahay a oo lagu daray okay b oo lagu dhuftay x soo ma ahayn okay b dii hadda su'aashii horaan kusoo saarnay eedan ayaa lagu weydiinayaa qaybta fixka ayaa lagu weydiinayaa marka waxaan rajaynayaa inaad ka soo shaqaysaan commentigana soo dhaaftaan inta aan ku kulmayno khamiista soo socota cashiradeenna waxay noqon doonaan maalin walba oo khamiista saacadu markay tahay 1:00 duhurnimo ayaan soo gelin doonaa insha Allah taala hadday dib dhacaana waxa weeyaan aan isku dul qaadano